gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo sheegay inuu san jiri doonin khilaaf soo kala dhexgala maamulkiisa iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Puntland oo ku wajahan aaga dagaalka gobolka Sool ee ay Soomaaliland isku haystaan dadaal lagu doonayo in la dhameeyo colaadda Soomaalida iyo Oromada oo socda kulan ay ku madalsanayeen golaha shacabka Soomaaliya oo baaqday iyo amar uu gudoonka soo saaray shacabka degmada Tieglow ee gobolka Bakool oo dalbaday in dib loogu celiyo degmadaasi oo ay shabaab gacanta ku hayaan dibadbaxayaal imaam masjid ku qasbay in uu banaanbaxa ka qayb galo iyo dalxiisayaal ku dhintay shil ka dhacay Kuba Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad markale subax wanaagsan waa sabti ay taariikhdu ku aasaysan tahay 12 bisha koowaad ee January 2019 Maxamed Axmed Tuuriyare ayaa warka oo dhan la diyaara waa maadsan tahay Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii idaacadda kulmiye oo intaad maqasheen ka faahfaahsan gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay inuu san jiri doonin khilaaf soo kala dhaxgala maamulkiisa iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ballan qaaday in isfahamka ay ka shaqeyn doonaan Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinaya warkan wafdiga ay u dirtay dawladda magaalada Garowe ee gobolka Nugaal isla markaana kulamo halkaasi kula qaatay madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland iyo wax garad ayaa inta aysan ka soo bixin halkaasi shalay waxa ay kulamo la qaateen gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Puntland labada dhinac ayaa ka wada hadlay in laga shaqeeyo horumarka dalka iyo in meesha laga saaro khilaaf waliba ay jiray gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobadaaraad mar uu la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeyay ay meesha ka baxday khilaafkii u dhaxeeyay maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayna balan qaadayaan inuusan soo laaban wax khilaaf ah muddada 2 sano ee u harsan dawladdan hadalkiisa sii wata ayuu ka dalbaday gudoomiyuhu madaxda haatan dalka ka arrimaysan in looga fadhiyo inay isku hayaan siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dalka si loo gaaro horumar wanaagsan dalkan iyo dadka idinka matala mana jiri doono arrintii halka laga hadlayo ay khilaafkaasi dawladda 2 sano u haray dawladda curadana way ahayd magaciyo sharafna iyadoo baynu ku yeelan karaa istayda hadda inoo samayn karo magaciyo sharaf dawladdaasi inoo samayn karo weyn waxaan anagu aan iska taagaynaa in dawladdaasi ay shaqeyso dawlad macnaheed noqoto meel wax gaarsiiso haddii alla ogolaado waxaan isku dayaynaa inaan khilaafkii hore dhabaxo mid dambena aanu imanin waxaan idinka codsanaynaa arrintaa dadkii fududayn lahaa weydinka dadka isu jiidi lahaa weydinka dadkii khayrka u kala sheegi lahaa weydinka dadkii waxa xun minaskaleyn lahaa maqalin lahaa weydinka waxaad ku leedihiin dowr fiican dowrkaas inaad xusuusnaataan annagu insha allahu waxaan ku dadaalaynaa khilaaf meesha inuu ka baxo waxaan ku dadaalaynaa personal interest inuu meesha ka baxo laakiin dowladda laftigeeda waxaan ka codsanaynaa wixii xaquuqa oo dee ay lahayd Puntland waxa weeye waa muhiim wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad maruu isna dhankiisa la hadlay warbaahinta ayuu shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya ay ku dadaali doonto dhankeeda in ay xaliso khilaaf waliba ay yimaada balse muhiim ay tahay buu yiri wasiirku in aan la oran cidna ma iimaan karto dhulka ay ka arrimayso Puntland anagu naga ballanaan arrintaas gacan ka geysano idinkana sidaan ka fahmay hadalka saadiq madaxda kalena aan ka maqalay madaxweynaha la doortay oo ka mid yahay iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan filaynaa inaad idinkuna ay ka dhab tahay oo ay sida iska tihiin haddii xataa khilaaf yimaado in laga wada hadlaay ayaa fiican wadahadal baa ku xalina horta waa isgoynay iyo waxaas iyo ha noqoto taariikh iyo islama hadlayno aan ka gudubno maaragtay iyo reer hebel iyo qol heblaayo nooma imaan karto arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo cabsi ka qabay in dawladda Soomaaliya ay fargeliso doorashada Puntland ka dhacday ayaa ka mamnuucay wafdi ka socday dawladda Soomaaliya si ay u tagaan magaalada Garowe doorashadii halkaasi ka dhacday isla markaana ay u noqdaan korjoogto madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa waxa uu ku wajahan yahay aaga dagaalka ay ku galeen Somaliland iyo Puntland ee gobolka Sool
socodkiisa ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii ay ciidamada maamulka Puntland furimaha ka soo baxeen markii doorashadu ay ka dhacday magaalada Garowe 8 bishan. Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramaya. xog hoose oo ay heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegaysa in madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash uu saakay ku wajahan yahay jidaha dagaalka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa maamulka Somaliland. madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo si weyn loogu xasuusto in uu ku sugnaa furimaha dagaalka gobolka Sool bilowga sanadkii dhamaaday 2018 isagoo wasiira, waxaa la filayaa inuu kormeero saldhigyada ciidamada difaaca Puntland ay ku leeyihiin aagaasi. wararku waxa ay sheegayaan in Axmed Karaash uu ciidamada u geyn doono sahay muhiim ah si ay uga farxiyo ayna uga qayb noqoto dabaaldegyada doorashadii madaxtinimada Puntland ee dhawaan ka dhacday magaalada Garowe. madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in dhulka ka maqan Puntland ee gobolka Sool uusan cidna gorgortan kala geli doonin, isla markaana uu rajaynayo in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu isgaran doono ciidankiisana uu kala bixi doono gobolka Sool. wasiirka biyaha Somaliland oo ka soo jeeda deegaanada gobolka Sool isla markaana ah difaacaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee arrimaha gobolka Sool oo adkeysanaya booskiisa ayaa dhankiisa sheegay in beelaha degan gobolka Sool aysan waxba ka gelin Puntland ayna meeqaamkooda geeyaan magaalada Hargeysa. hayeeshee booqashada saaka la filayo in madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Karaash uu ku tago deegaanada gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland ay isku hor fadhiyaan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay tan iyo markii dhawaan loo doortay xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland. dadaalo la doonayo in lagu dhameeyo colaadda Soomaalida iyo Oromada waddanka Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inay halkaasi ka socdaan. waxaa deegaanada ay wada degaan labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromada ka soconaya dadaalo la doonayo in lagu dhameeyo colaadda u dhaxaysa labada dhinac ee dhowr jeer oo hore ku dagaalamay waddanka Itoobiya. madaxweynayaasha maamulada Soomaalida iyo Oromada ee wada degay Itoobiya ayaa waxa ay yeesheen kulan ay uga hadlayeen dagaalka labada qowmiyadood, waxaana xalinta loo saaray odayaal iyo aqoon-yahano ka socda dhinacyada dagaalamay. dagaalkii ugu dambeeyay ee labada dhinac ku dhaxmaray deegaano uu ka mid yahay Mooyaale ayaa waxa ku geeriyooday dad ka badan 50 qof oo isugu jira Soomaali iyo Oromo. dhibaatada dhaxtaala qowmiyadaha ayaa hadda waxa dadaal ugu jira xalkeeda maamulada Oromada iyo Soomaalida ee Itoobiya. golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeelan lahaayeen magaalada Muqdisho waxa la tilmaamay in uu baaqday, waxaana kulankaas dib loogu dhigay Isniinta toddobaadkan. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. waxaa baaqday kulan maanta ay ahayd inay yeeshaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo shalay la cilaamiyay looguna doodi lahaa ajandiyaal ay qayb ka yihiin codaynta wax ka beddelka sharciga antidhoorka iyo sidoo kale xeerka maamulka bangiga dhexe. kulanka ayaa u baaqday koorum la'aan xildhibaanada xaadirku waa inay ka qayb galaan, waxaana guddoonka golaha shacabku soo saaray amar ku socda xubnaha golaha shacabka ee dibadda ku maqan. guddoonka ayaa mar kale faray in Muqdisho ay ku soo xaadiraan si ay u qayb galaan kulamada golaha shacabka, waxaana sidan oo kale ay dhacday dhowr jeer intuu furnaa kalfadhiga afraad. labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka dhex jira khilaaf ku salaysan dastuurka iyo awoodaha shaqo ee labada gole. golaha aqalka sare ayaa maalmo ka hor madaxweynaha Soomaaliya ka dalbaday in il gaar uu ka eego khilaafka labada gole. kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weli u furan golaha shacabka halka aqalka sare uu xiran yahay. furitaankii kalfadhigan ayaa sidan oo kale kala dambeeyay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. shacabka degmada Tayeglow ee gobolka Bakool ayaa waxa ay ka dalbadeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in dib loogu celiyo degmadaas oo ay hadda maamulaan Al-Shabaab. Axmed Saadaq Cabdulqaadir Yarow ayaa warkan inooga soo diray magaalada Baydhabo. kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah shacabkii ka soo barakacay degmada Tayeglow ee gobolka Bakool ayaa xalay waxa uu ka dhacay degmada Xudur ee gobolka Bakool. shacabkan ayaa gebi ahaanba waxay ka codsanayeen madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta loogu dhigo degmadaasi oo hadda gacanta ay ku hayaan nabaddiidka Al-Shabaab. haddaba qaar ka mid ah shacabkaasi oo la hadlay raadiyo kulmiye waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: madaxweynaha
sharaftale waliba ku codsadaan wadame uu noohi wadamyaalkuna noo hirin intii qabada Cabdicasiis lafta garay waliba ku rajeeyaan antii aan ay tahay la masin iyo lambilood ku roogna intii jeeyo eediyadan ku rajeeyo madaxweynaha salaamu calaykum wa rahmatullaahi barakaatuh salaanto muslimkaasiin ka salaame lama san iyo naytaw lama bilowda inta ka noolo madaxweynaha sharafta leh iyo madaxweynaha federaalka Cabdullaahi Farmaajo inay ma aragna safaylahan han dhawaayana oo diyaarana qalbo furun laab wanaagsan saabo furun antaasaha ka dhawaayan nabadninka naga waan iyo degdeganina lafta garay wayba ka dhawaana degmidaan inta degdeg ninka naga hadama disu naga la bariyay bahar ku banamay dheeray ku rajayaan may dheeray askartana rafaad inta mashaasha degdegan ka wala degdegni naga yasi ka dhawaayayna alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh horta ana aha barakay reertiyoglow wali hadhawaayay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan lafta gareen ayaan soo dhaweynayaa gacmo furan insha Allah ilaahay idin sheegay baa ka jaan intii degdeg ay wadankeena kanago meel onto nabadiidkii roogan sadaacad aan ku horay oo sul garabsha ilaahay galo taas ilaahay ku jaan madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhawaan ballan qaaday inuu isu furi doono wadooyinka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya gacantana uu ku dhigi doono deegaanada ay weli gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab Axmed Cabdulqaadir Yarow Axmed Saadaq Radio Kulmiye Baydhabo warka subax Radio Kulmiye ayaad dhageysanaysaan waxa inoo soo socda wararkii dibadda oo aad mar dhow maqli doontaan hase ahaatee markan duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono mudaharaadayaal ayaa imaam masjid waxa ay ku qasbeen in uu banaanbixii ay dhigayeen hogaamiyo imaam Suudaani ah oo dalkaas saameyn ku leh ayaa waxa laga soo saaray masjid ku yaala magaalada caasimadda ah ee Khartoum kadib markii dadkii masjidka ku jiray oo banaanbax dhigayay ay ku canaanteen inuusan hogaaminayn banaanbaxa looga soo horjeedo madaxweyne Umar Xasan al-Bashiir muuqaal la soo dhigay warbaahinta bulshada ayaa waxa ka soo muuqday nin ku qaylinaya imaam Cabdulxay Yuusuf oo kule kac na hogaami oo naga soo wad masjidka dad badan oo masjidka ka soo baxay ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen dhac oo ah eray ay ku diidan yihiin madaxweynaha Suudaan ee talada haya 30 sano ee la soo dhaafay dadkii isu soo baxay jimcihii booliisku waxay u adeegsadeen gaaska dadka ka ilmaysiiya 3 toddobaad ayay socdaan mudaharaadyada wadanka Suudaan waxaana ku dhintay ugu yaraan 22 ruux ugu dambeyntiina dalxiisayaal ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen shil ka dhacay wadanka Cuba sida ay sheegayso warbaahinta maxalliga ah ee wadanka Cuba shil ayaa waxa uu ka dhacay bariga wadanka Cuba gaari ay saarayeen dad dalxiisayaal ayaana rogmaday waxaana la soo sheegayaa in ay dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan 4 qof oo ajnabi ah wadanka Cuba aan u dhalan halka 10 kalena ay halkaas ku dhaawacmeen laba kamida dadka ajaanibta waxa ay ka soo jeedaan dalka Argentina halka mid kalena uu ka yimid wadanka Faransiiska midka afraadna uu Jarmalka u dhashay dad gaaraya 33 qof ayaa ku dhaawacmay oo ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay wadamada UK Mareykanka Canada Faransiiska Netherlands iyo Spain gaariga baska ah ee ay saarayeen ayaa shilka waxa uu ku galay meel u dhow magaalada Guantanamo kaas oo ka gooshayay goobta loo yaqaano Baracoa oo ku taala amaba u dhow magaalada caasimadda ah ee Havana darawalkii gaariga waday ayaa waxa la tilmaamayaa in uu ka mid yahay dadka ay waxyeeladu soo gaartay gaariga baska ah waxa lahayd shirkad dawladdu ay leedahay waxaana gaarigaas la tilmaamay in uu siday 40 qof oo rakaab ah oo ay ku jireen 22 ajaaniba warkii subax oo idaacadda kulmiye ee Muqdisho aad ka dhageysanayseenna intaas ayuu ku dhan yahay cidii warka iyagu dhaafay radio kulmiye.net iyo dib u heli kartaa dhageystayaashana jooga magaalada Gaalkacyo waxay naga dhageysanayaan radio Hayaan magaalada Cadaadana radio Cadaado magaalada Beledweyne radio Wadani ay dhageystayaashana naga maqli karaan Mareykankana Somali American Radio